daawada video uga hadlayno farsamooyinka diyaarinta beeraha barbarooniga. Farsamooyin badan ayaa loo baahan yahay in la maro si loo diyaariyo beero wax soo saar leh oo tayo leh. Barbarooniguna sidoo kale ayuu u baahan yahay. Waxyaabaha ugu horeeya oo qofka beeralayda la rabo inuu ka fakaro waa waxa loo yaqaano market survey ama sahanka suuqa. Suuqa waxa ka jira waa inuu ka warqabaa. Beeralay cusub qaladka ay sameeyaan oo ugu horeeya waxa ka mid ah inay bartaan sidii dalagga loo soo saari lahaa kaliya, laakiin ay iloobaan ama aysan aad uga fakarin baahida ama sida looga rabo dalagga ay soo saarayaan suuqa xilliga ay soo saarayaan. Marka waxyaabaha ugu muhiimsan qofka beeralayda la rabo waxa weeye inuu hubiyo dalaggiisa inuu ku soo aadayo xilliga ugu fiican sanadka ee baahida ugu badan ee dalaggiisu ay jirto. Dabcan waa dareemi karnaa qof kastoo beeralay hadduu saa sameeyo maxaa laga faa'iidayaa weeye, laakiin waxay u baahan tahay fakar iyo dadaal. Sidaas darteed cid kasta ma samaynayso. Marka sidaas darteed waa inaad ka fakartaa qaabka ugu fiican ee aad ku soo aadi karto xilliga suuqu ugu fiican yahay ee dalagaas loo baahan yahay. Weliba haddii aad beeralay yar tahay oo dalaggaaga iyo wax soo saarkaaga uu mid kooban yahay, awooddaada iyo jaaniskaaga ugu fiican inaad faa'iido ka hesho waa inaad xilligaas ku soo aadisaa. Marka baaritaanka suuqa aad samaynaysid oo dadka suuqleyda aad wareysanaysid, dadka iibiya aad wareysanaysid, waxyaabahaas oo dhan adoo isku aadinaysid, barnaamijkaas wuxuu kaa caawinayaa inay qarashkii iyo waqtigii iyo hawshii kaa gashay inay insha Allah kaaga soo baxdo. Kaba soo qaadba magaaladaada 50,000 qof hadday ku nooshahay, imise ayaa cunta qudaarta aad soo saaraysid, imise ayaa iibsanaysa. Ilaan dadkii oo dhan adiga kaama iibsanayaan, ama dadkii oo dhan qudaartaas aad soo saaraysid ma cunaan. Waxaa laga yaabaa 10% ama 2,500 ama 3,000 qof kaliya inay cunto qudaaraha noocaasa, imise adiga kaa iibsanaysa. Marka barnaamijyadaas oo dhan ayaa la rabaa inaad ka fakartid si wax soo saarkaagii uu dadkiina u anfaco, adigiina uu ku anfaco. Marka waxyaabaha aad samayn kartid waxaa ka mid ah barbarooniga kale haddaa iibinaysid mid kalar cusub mid leh, ama guduud ha ahaado ama jaalle ha ahaado, ma ku soo dari kartaa oo dadku ma xiisaynayaan. Waxyaabahaas oo dhan ayaa la rabaa inaad ka fakartid oo xilliga dadku ay soo guraan oo horey aad ka soo guraan oo cagaarka inta u kaadisid markay guduudka noqoto suuq ma u heli kartaa oo dadkii ma ka iibi kartaa. Waxyaabahaas oo dhan qaab cusub oo dadka ugu iibinaysa ma samayn kartaa. Kaartada labaad oo la iska rabo inuu qofku uu sameeyo waxaa ka mid ah tijaabinta ciidda. Inuu ciidda tijaabiyo waxa ay tahay iyo qaabka ay tahay. Marka badeelkaaga qaado, tijaabi waxa ciidda hoosteeda ku jira si aad u aragtid oo ciiddaada tijaabi. Laakiin waa dareemi karaa dhibaatada waddanka jirta oo ah meelihii shaybaaradaha lagu baari lahaa ciidda inay ku yar yihiin ayaa laga yaabaa. Marka inaad ciidda tijaabisid faa'iidooyin badan ayaa ku jirta. Wax soo saarkaagii inuu siday tahay u hagaago ayaa ka mid ah in aadan nafaqo muhiim ah aan ahayn markaas oo aan loo baahnayn inaad ciiddaada ka badiso oo si saa'id ugu shubto oo ay kaa qasaarto, cimiladiina ku ciyaarto, adigina ay kaa qasaarto. Haddii marka taas ay tahay oo nafaqo ku filan ciiddaada ay ku jirto, inaysan kaa qasaarin oodan nafaqo ku shubin, lacagna kuu badbaado, energyna kuu badbaado ayaa ka helaysaa. Haddii aysan ka dhiman tahay oo dalaggaagii wax soo saarkiisii ay wax u dhimayso, aad nafaqadii yartaa oo ka dhimaneed aad ku shubto ayadana. Waxyaabaha marka aad tijaabinaysid, markii aad ciidda tijaabinaysid waxaa ka mid ah pH-ka iyo nafaqada. Labadaas ayaa waxyaabaha ugu muhiimsan ah oo laga tijaabiyo ciidda. Labadaas haddaad ogaatid faa'iido weyn ayaa ka imaanaya wax soo saarkaagii insha Allah. Farsamooyinka kale oo la isticmaali karo oo lagu dadaali karo waxaa ka mid ah inaad compost samaysatid iyo maadada dabiiciga ah oo ciidda aad ku badisid. Faa'iido aad u fara badan ayaana laga helayaa taas. Marka compostigii ciidda iyo maadada dabiiciga ah ku badiso ayay sahlaysaa. Sidaas darteed faa'iidooyin badan ayay ciidda u leedahay oo ciiddii in qaab dhismeedkeedii uu si fiican u hagaago. Hadhow ciiddii markaa ka shaqaynaysa haddaa cagaf la gasho oo kale haddii ciidda maadadeeda dabiiciga ah uu badan yahay waa sahlan tahay oo ciiddu waa u dulqaadan kartaa baabuurta dul maraysa. Nafaqa ciiddii waa ku kordhinaysaa, biyihii waa ceshanaysaa, faa'iido aad u fara badan ayay ku kordhinaysaa. Dabcan dhul weyn haddii aad abuuraysid 30 hektar iyo dhul weyn haddaad rabtid inaad abuurtid oo wax soo saarkiisa aad hagaajisid, way adag tahay in intaad samaysid compost inaad dhulka dhan kala gaarsiisid. Shaqo aad u fara badan weeye. Badanaa compostiga wax loo isticmaalaa dhulka yarka oo weliba horticulture-ka dalagyada qaaliga qudaaraha ayaa aad loogu isticmaalaa. Laakiin dhulkaas waa weyn haddaa isticmaalaysid waxyaabaha aadka loo sameeyo oo looga faa'iidaysto waxa weeye waxa la yiraahdo cover crop. Inaad dalag ku abuurto ama caws ama dalagyada aad awoodid oo loogu talagalay waddankaaga ku fiican inaad ku abuurto, kabacdina aad ciiddii
inta balow gelisa ku baabi'iso. taas marka ciidaha bacaadka ah oo kale waxay sahlaysaa in biyo ceshigoodii iyo nafaqadoodii iyo erosionkii iyo ciiddii oo dabaysha ama biyuhu qaadaan inay yarayso. sidoo kale waxay kor u qaadaysaa noolayaasha faa'iidada u leh ciiddaada iyo dalagyadaada ayay kor u qaadaysaa. walaalaha qaar ayaa waxay soo weydiiyeen digada xoolada oo la isticmaalo in laga yaabo inay ciiddoodii dhibaato u keento oo cudurradii ay ku badiso. beeraley badan ayaa ila hadlay oo yiri ma isticmaalayno, oo yiri maaragta waxaan ka baqaynaa inuu cudurro uu nagu kordhiyo iyo bahalo. laakiin baaritaamo badan oo adduunyada laga sameeyey ayaa waxay muujinayaan inay faa'iido u leedahay in la isticmaalo digada xoolaha, in beeraha loo isticmaalo. inkastoo ay jiraan baaritaamo yar oo ka duwan, laakiin inta badan baaritaamada adduunka laga sameeyey faa'iido badan ayay u leedahay in lagu shubo saxarada xoolaha. markii aad ku dartid digada xoolaha, markaa beerta ku shubtid, noolayaashii ciidda ku jiray aad ayay u kordhinaysaa, oo noolayaal aan caadi ahayn oo tiradii ka batay ayaa kusoo daraysaa ciiddii. laakiin noolayaashaas qaar faa'iido leh iyo qaar aan faa'iido lahaynba waa ku jiraan. laakiin mar kasta waxaa badan ayaa baaritaamadu muujinayaan kuwa faa'iidada leh. marka waxaa ku jira noolayaal cunaya fangaskii beerta kaa dhibi lahaa oo dalagyadaada dhibi lahaa cunaya ayaa ku jira. intooda badanna ayaga ayaa laga adkaadaa oo laga guulaystaa oo cayaanaadka kale ayaa cuna. marka faa'iido badan ayaa ku jirta dhinacaas markii laga eego, oo aan laga hadlin faa'iidada kale la iskuma hayo oo laga helayo, oo wax soo saarka iyo nafaqada iyo ciiddii hagaajinteedii la iskuma hayo. waxaa faa'iido ugu jirta inay cudurka yaraynayso ee maahan inaysan cudurka badinayn. digada markii lagu daro ciidda waxay kusoo kordhinaysaa nafaqooyin kala duwan. taas ayaa waxay keenaysaa marka inuu fangalkii uu dhasho oo nafaqadii aad ku shubto oo saxarada la socday inuu kusoo dhasho. laakiin markii uu geedo waayo uu ku soo baxo uu galo inuu kabacdi meesha ku baaba'ayo ayaa la sheegay oo dhibaato weyn ay ka qabsanayso. baaritaamada ayaa marka waxay muujinayaan in barbaroonigu uu u baahan yahay saxaro ama digo compost ahaan laga soo dhigay si looga hortago cudurrada ka dhalan kara beerta. kuwa laga soo qaado doorada ayaa aad ugu fiican, weliba aad ugu muhiimsan. meelaha qaar hadda sida Kenya oo kale 4 ilaa 8 tan ayaa halkii acre lagu shubaa. hectar maahan, halkii acre 4 ilaa 8 tan ayaa lagu shubaa si ciidda maadada dabiiciga uu kor ugu soo kaco. taas marka micnaheedu waxa weeye hal god oo kasta oo la gelinayo barbarooniga waxaa lagu shubayaa 2 gacmood camal oo digada xoolaha ayaa lagu shubayaa halkii godba. markaas ka bacdi haddii godka aad ku shubto 2daas gacmood oo digada ah waxaa laga rabaa inaad ku qastid. laakiin sida aan soo sheegnay digadan waa mid compost laga soo dhigay oo la soo jilciyey oo la soo baabi'iyey. diyaarinta dhulka, sida aad dhulka u diyaarisaa waxay ku xiran tahay inaad greenhouse ku korinaysid iyo inaad banaanka ku korinaysid dalagaaga ayay ku xiran tahay. marka waxyaabaha la sameeyo waxaa ka mid ah haradigii dalagii oo baxayay ama kuwii ka soo baxay oo haramaha ahaa inaad ku burburiso ciidda. waxay ka mid tahay nidaamyada ciidda nafaqadeedana kor loogu qaado, maadadeeda dabiicigana kor loogu qaado ayay ka mid tahay. weliba aad waxay muhiim u tahay maadaama beeraley badan oo Soomaaliya aysan haysan diga badan oo ay beerta ku shubaan. sidaas darteed dalagyada inay abuuraan oo ciidda ku burburiyaan ama kuwii ka haray ee ciidda ku burburiyaan aad ayay muhiim u tahay oo maadada dabiiciga kor sidaas loogu qaado. haddii marka aad awoodo inaad machinery isticmaasho oo aad ku baabi'iso dalagyadii ciidda aad ku baabi'iso, dabcan waa samayn kartaa. laakiin haddii aadan awoodin ama gacan ama machinery isticmaal, waa inaad ciidda aad jilcisaa. marka ciidda sida qaabka u diyaarinaysid waxay ku xiran tahay qaabka u waraabin rabtid ayay ku xiran tahay. haddii aad greenhouse aad ku abuuraysid, greenhouse-ka waxaa la isticmaalaa raised bed waxa la yiraahdo ayaa la isticmaalaa oo labadii geedba saf la geliyo korna loo qaado. halkii bed marka waxaa la gaarsiiyaa ilaa 90 ilaa 100 centimeter, 1 mitir ayaa la gaarsiiyaa balaarka. dhirar ahaanna kor waxaa loo qaadaa 15 ilaa 22 centimeter ayaa kor loo qaadaa. marka labada bed dhexdooda ayaa waxaa la reebaa marka space ama boos qofku ku lugay karo oo isku jira 45 ilaa 50 centimeter, nus mitir isku jira ayaa loo dhexmariyaa si biyaha loo badbaadiyo iyo cudurrada iyo haramaha ka soo baxaya beerta. haddii lagu abuurayo greenhouse, meelaha qaar waxaa la sameeyaa mulching waxa la yiraahdo ayaa la isticmaalaa, ama bac ha ahaato ama mara kale ha ahaato
oo geedka hoostiisa la geliyo si biyihiina ay kugu dhaqaaloobaan. dabcan qaybta hoose ayaa markaas waxaa la marinayaa drip irrigation systemkii oo biyuhu kasoo baxayeen. laakiin bannaanka haddaad ku abuuraysid oo aad rabtid inaad biyaha aad kor ka siisid, dabcan markaas uma baahnid inaad godgod u samayso, maadaama biyihii ay kor ka imaanayaan. si siman ayaad markaas dalga aad ugu duugaysaa haddii ilaahay yiraahdo. ama haddii aad isticmaalaysid drip irrigation xataa bannaanka aad ku isticmaalaysid, dabcan markaas waa simaysaa dhulkii, si siman ayaad dalagii u safaysaa. laakiin markii aad rabtid biyaha inaad si daada aad u siiso, markaas waxaa ku qasban tahay inaad u samayso furrows ay biyihii soo raaci lahaayeen. laakiin wax kastoo aad samayso waxaa muhiim ah in ciidda la jilciyey oo ay sahal tahay in xididkii hoose uu aado oo nafaqada hoose iyo biyaha hoose uu gaaro. waxaan rajaynayaa inaad video ka faa'iidaysteen. intaan video kale kulmi doono, asalaamu calaykum waraxmatullah iyo beerasho wacan.